daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan Faafiye show oo caawan halkan in ku hayno episode-kiisii ugu horeeyay. Faafiye show wuxuu noqon doonaa show aad asbuuc walba kala socotaan website-keena faafiye.com iyo channel-keena YouTube. Caawa showga waxaa ila daadihinayaa Bashka iyo Cabdifataah. Welcome to Faafiye show. Thank you. Caawa episode-ka aan meeshan ku hayno ayaa wuxuu yahay waa episode ku saabsan iska horimaadka madaxweynayaasha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha. Every ra'iisul wasaare oo Soomaaliya loo doorto iyo every madaxweyne waxa dhacda inay iska horimaadaan mar walba. Arintaas ayaan rabnaa inaan caawa fiirino waxa sababay iyo waxa arintaas lagu daaweyn karo. Cabdifataah iyo Bashka. First question goes to Bashka. Bashka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad isleedahay ayaa sababay inay madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliyeed iska horimaadaan mar walba. أنا وحدي لها سومالي واحد هذا قف بكتة بقول وتلس قف مركو جريه قف البحر وشيء عليه هل وجو قف عليه هل وصرصرة قف عليه هل جا جوي قف عليه هي أختار كحول أوتك والله يا قفك داودني لا هايو سجاوك ماشي كوجرتو لكن أنا أهم حاول أركا رئيس الوزراء مدعونا يسقبصنا هايو ده سنو الله شرعي كلا علنا يلا بدو باور شيء واحد هذا مجرو ماشي شرعي كلا علنا أنا مجرو مدحوينها أوكي أنت أكو أكتر هذا شغلة هذا وقتنا مدحوينها شغلة سمو يقانو باقرت رئيس الوزراء شغلة سمو يقانو ولا سكول عامرك باقرت and there's no one أو نحاول جرو مرة معناها شرعي حدوس جري كلا علنا اللي بدو ذنا ولا سكول عام قصب واحد رئيس الوزراء يخفوا فاير هيا مدحوينها ما أنا حلي واي أو فاير تخف كان باقرت did I say fire no أنا بحال صعب قراري شرعي كل عليها مركب مجربه مدعويني رئيس الوزراء قف كستنا شقدي سمي خان مدعوينها شقدي سمي خان رئيس الوزراء شقدي سمي خان اسكو دعوه إيمانا يا اسكو دعانا هذا ما بنوقو هرينين إلا وحصوب بالله وذي واجي from نور حسن كصوب بالله نور حسن حسين 2007-2009 number 2 عبد العزيز علي الشرماركي مدعويني كستو قبت رئيس الوزراء لا يبلود ما هاي واي يسوي مهم تتاسوي sababtoo madaxweynaha mideynaayo ra'iisul wasaaraha shaqadiisa inuu sameeyo gacan furan ma ugu deyn booskiisana gacan furan ma lagu siin sababtoo qofka haduu gacan furan wax lagu siiyo shaqadiisa si fiican u furta laakiin hal lug dhinacana ugu jira hal lugna mar ra'iisul wasaaraha shaqadiisa inuu sameeyo madaxweynaha hadeer meesha confusion kan dhan keenay madaxweynaha waxa la rabaa inuu u daayo ra'iisul wasaaraha shaqadiisa inuu sameeyo sax. Okay, so hadda arintan iska horimaadka oo socda, waan aragnay suu Bashka sheegay I think this will be the 7th prime minister or the 6th oo lagu sameynayo impeachment صح oo la leeyahay we are going to seek wax la yiraahdo a vote of no confidence through the parliament صح arintaas yani dhibaatada ay dalka u keenayso waan wada ognahay hadda markii farmaajo waagii laga qaaday meesha waxa xasuusta abaaraha socday intaasoo milyan intaasoo kun qof ku dhintay abaarihii yani dawladdiiba hadday haysato shacabkeena meesha waa ku sii baaba'ayaan mugta marka that brings me to my second question. The second question I have for you Bashka iyo Cabdifataah waxa weeye mas'uuliyadiin Somalia needs the position of a prime minister sababta waxa markay shaqeyn waayaan waxa loo baahan yahay qofku inuu raadiyo solution. You cannot be doing the same thing over and over again. For now, the way I know the position of having a prime minister and a president with equal powers is not working. Do you think we need to change the constitution and amend the constitution to get rid of the position of a prime minister? Yeah. Referendum kadan in la bedela fiican. Okay. Was markaas madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in noqoto. Sababtoo markasta ra'iisul wasaare 6 bilood ka bacd ma la imaan hadana iscajil ma la dhahayo sax okay waxa noo fiican madaxweyne ku xigeen in la siiyo Bashka arintaas ay warta aniga waxaan arkaa ka soo bilow 2007-2009 نور حسن حسين عمر عبد العزيز علي الشماركي محمد عبد الله محمد فرماجو عبدولي محمد قاس عبد الفارح شردون عبدولي هدو دنبي نك وير لحب بلاد هالسنة لحب بلاد هالسنة what's going on waa lix bilood hal sano ugu waqtay dadka shaqadooda loo daayo shaqadooda ha qabsadaan gadaal dambe check and balance wax yiraahdaa jiro ha laga xisaabtamo gadaal
يا قرت ninkan wuxuu faayir kara ha faayiro gadaal laga xisaabtamo laakiin buuq iyo qayli iyo firimbi la iska daba qaato oo qaarna ay ra'iisul wasaare la jiraan qaarna madaxweynaha ay la jiraan la iska soo horjeesto la isku dhaco shacabkina ay gacmaha intay dhafoorada saarteen dadkaas wax ka sugayaan dadkaas qabsanayo kuraas isku garaacaya aragti ay wax ka sugayaan shacabka كراسته واحد حسوستا 2004 كي بهد نيرو هذا لكن ما لو فيديو عن داوني اونلاين waxaan ku arkay horta arrin aan la yaabay taasoo ah raggii lagu leeyahay xildhibaanadii Soomaaliya sax ragga loo xil saaray mise yani awood u leh inay prime minister kan mise impeach gareeyaan oo shaqada ka qaadaan with a vote of no confidence sax ayaa intay firimbi soo qaateen ku dhex yeernay baarlamaanka Soomaaliya ninka noocaas oo firimbi Soomaaliya baarlamaankeed u soo qaatay sax isagoo yani qaar hadii la dhigi karo motivationkooda uu ahaa qabiil ahaan sax isagoo difaacaya sax ninkaas oo kale siba yani xildhibaanada hadda Soomaaliya dadka xildhibaanada ka ah sax do you think inay u qalmaan mise they are even qualified to be the representatives of Somali people sida ma aragtaan tax u deynaya arrintaas ana horta kuwaas ma u maleenayo sababtoo ah adoo xildhibaan dhan ah filimban ma soo istaagi doonto baarlamaanka dhexdiisa tan kalena waxaa waaye xildhibaanada lagu sheegayo waa warlordyaashii Soomaaliya sax way wadankii baabi'iyay haddana maanta xildhibaan noo noqday sax Soomaalina waxay dhahdaa qof guri dumiyay sax guri kalena ma dhisi karo that's true ku raacsanahay ana Cabdi Fataax sax ana waxaan taaganahay raggan horta hal meel kama imaanin hal gobol kama imaanin gobolada Soomaaliya la keenay raas Kamboni geeskooda waa la isku keenay 230 kooda waxa la lahaye dagaalka joojiyobka laga dhigay waa loo dhigay aasna naqan alxamdulillah waxa ku fakan hadda kuraas dhulka lagu dhajiyay kuraas la qaadayo la isku garaacay waa la joojiyay baarlamaanku aragteen oo maayna kuraas dhulka lagu dhajiyay sababta dhulka lagu dhajiyay maxay tahay madax xanaaqayo kan nagast ku dhagan oo ku dhigta waa saxday sax soo kuraas horta alxamdulillah dhulka lagu dhajiyay thank you dadka keenay kuraas dhulka lagu dhajiyo ulihii iyo bakoordii la soo galayna waa la joojiyay alxamdulillah oo ma jirto garaac dambe dhaawacay ul iyo ma jirto filim baad marayso xogaa waa soo fiicnaanay laakiin way caruurayeen sheekada idmiya ku jirna marka aniga ahaan say hortay la tahay oo markaas videogaas aan daawaday aad baa wax maaday sababtoo ah waxaa meesha ku arkay wax yani la dhihi karo being a member of parliament is a huge position that's true waxaa tahay nin loo doortay you have the power to change the laws of the country that's true you have the power to represent the people there mataqana that's true that's true so nin dhalo xildhibaan oo Soomaaliya oo mataqana meeshii baarlamaanka dhex joogo oo ra'iisul wasaare halkaas fadhiyo sax garanaysa professor Jawari sax ya oo halkaas fadhiyo sax in uu firimbi soo qaato uu magaranaysa meeshii firimbi ka yariyo sax you know there is I believe in freedom of speech which is qofku inuu magaranaysa wixii fikradiisa u dhiibto sax laakiin I don't think the freedom of speech covers sax nin firimbi soo qaatay sax magaranaysa marka waa arin aad looga xumaaday usii boqoradiye dhanta usii boqoradiye dhanta laakiin at the same time ninkaasi aqliyadiisa ayuu tusay by coming to the parliament with the freedom that's true so coming to the next question which is haddii la fiiriyo hadda Soomaaliya sax imse xildhibaan bay ahaayeen horta 270 xildhibaan sax okay sidaan ognahay xildhibaanada Soomaaliya xildhibaana ay dadku soo doorteen ma aha sax waa dad hand pick lagu sameeyay oo qof hebel baa hebela sax hebel baa hebel lagu soo doortay sax and most of them waxaan ognahay inay ahaayeen dadkii Soomaaliya meeshii maanta joogto keenay that's true dadkii ka dambeeyay dagaalkii sokeeye that's true dadkii magaranaysaa intaas soo shacab soo laayay sax marka the main point oo sharci lagu dhiibay shaqadaasna ay tahay yani since he's a troublemaker sax nin dhashika iyo magaranaysaa zoo you know waxaas wata in yani si uu dalka dhibaatada ugu joojiyo lagu qanciyo positionkan hawniyo wasiir noqo سمح xildhibaan noqo صح dagaalka naga jooji way mugta صح ninka noocaas ma u qalmaa which we know the majority of the Somali parliamentarians today are former warlords. True. So do the Somali people need a warlord to be their member of parliament? No. Do you think they even qualify or to be representatives of the people in Somalia?
أنا حيلة تهاي شعب كيا صوب بيسه ما أنت نمو دودي كرتي صح وصوت دمسي وصوت دمسي قف إن رأسنا ودلني رضا إني هدر صوب بحر واي صح dadkan oo Soomaaliya wadankeena soo baabiye kees ina u reebano dhalinyarada way joogtaa wax bartay ha soo baxan wadanka aan qabsano صح meel ka soo saarno wadankeena oo ku raacsanahay aniga صح oo ku raacsanahay fitax laakiin yaa loo nolol qasbin waloodyaashii oo shalay dhiiga ay ka wadankeena baabiyeen maanta inay wax noo sameynayaan صح sababta ilaa hadda waxa wili maanta kana la keena ra'iisul wasaaraha iyo waxa loo bixinaa sababtaas waa wili okay horta arintan hadda la leeyahay ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynaha ayaa isku dhagan way dhacday hore way u dhacday saan sheegnay wakiil axad صح laakiin haddaa fiirisid arintan maxaa sababa isleedihiin ma qabiil baa ka dambeeya ma cadow Soomaaliya ku soo duulay oo mataqaana horumarkeeda wadin baa ka dambeeya what do you guys think cost or always causes the president and the prime minister to see each other markaan fiiriyay aniga siyaasadda Soomaaliya hadda arinta hadda adiga ka hadlayso ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha tan hadda ugu dambeysay ra'iisul wasaare Cabdiweli sharci looga tuurayay looga tuuray Soomaa waa la tuuray jaa ma aha ra'iisul wasaare from now wali waa la isku haystaa positionkaas wali waa yahay ma ahan wuu yahay macnaha wali dagaal ka socdo sax baral grano socdo Soomaa sax sababta keenta waxa waaye madaxweynaha in adeerkiis runtii laga hadlaa fiican runtii ilaahay taqaan madaxweynaha in adeerkiis oo ninkii hayay dastuurka ninkii uu dastuurka hayay wuxuu ku jiraa dam jadiid ururka madaxweynahana meesha keensaday waan in adeerkiis ayaa la faayiray yaa faayiray ra'iisul wasaare Cabdiweli waa loo yeeray waxa lagu yeeray sababta u faayirtay maxay tahay awoodna uu leeyahay inuu fayro awood uu leeyahay ra'iisul wasaaraha inuu fayro ninkan oo nin kala keeno ku habboon booska sax marka waa arinta ahdaad ka hadlaa ahayd power sharing ma laha loo kala celinayna ma laha sfiri in adeerkiisu fayray waa loo yeeray waa oo fayrtay Cabdiweli adina waa inaad raacdaa waana baxdaa ninkan waa in la soo celiyaa okay waa intaas arinta la isku haysto Nicholas Kay gaartay everybody dadkan kor naga maamulo waa taqaan UNK Washington DC waxaa noola qabtay 6 months Soomaa 6 biloodaan waxba ka bedel maxaa liiri dhaqaalaheena wax walba kala noqonaya shanta kun oo dollar oo baarlamaanka qaadanayaan calaa qof 230 kooda meeqa milyan waxa waa 1,375,000 dollars thank you ayaa ku baxda bil kasto lagu cunaa Soomaaliya ninka xildhibaanka oo hadda Soomaaliya ku jira baarlamaankeeda sax haddii aad fiirisid raggaas sida la sheegay waa rag meesha u imaada mushaar inay ku qaataan Soomaa sax ninka filimbiga watay maybe maantaas uu horeysay inuu baarlamaanka soo istaago صح وأنا أسوي استاجي موشن كي ليري رئيس الوزراء الوزراء صح سمع صح مركا that brings me to my third question which will be the year 2016 وحال الشيء إن الشعب الصومالي جانس أهل الدولان إن يدورتان صح directly ودورتان دتك مثل الدونا صح مركا سؤال عشان ربنا أن يوديه بشكل فتح وحوي صوماليا مسألة هنديار بيوتهاي إن لقبته دورشة دايركت صح وقفكو دوران قفك وربا إنه مدح النقضاء مسوء مثله صح مسألة صوماليا هذا ديار بيوتهاي رنتس سقولتها فتح أنا حقي لا صوماليا ديار وتحي شعب كانوا يجعلان لها إني دورتان قفكي روان صح صوبته قاعد نقول لك لا هذا المشي فديا صح لكن دبكو حكي معنا يا بروسيس كيلو مري لها صح ألابتنا ما لها يوم صح صوبته هذا ما تعدل ده لأن كان أسوأ عذينا يا صح قف شرعي ماشي كوت ماله صح سيستم كده بنا جمكان صح يو هذا المدير باهنا سيستم كاسم لغو سمين كرو صح لكن وحجر أريه كلا سمين كرو أي حاجرتا قد قعنت لمريو صح
qofka markuu cadeeyo qadkeesu marsanaya madama ma kusoo noqon karo macnaha qadaasa macnaha week oo leys gacantiisa macnaha ma dhaqi karo sax sababta haddii taas ahaynna maanta dhan la cadeynaysaa sax laakiin macnaha ma hayna teknolojiyada hadda haysano ah ID-gii social security-kii formkii la buuxinayay la sign gareynayay ma hayno laakiin haddii xataa la sheego technology-gaas la keeno let's say khadaas la sheegay la sameeyo si loo sameeyo mataqaanaa in laga taxadiro inaan la xadin podcast do you still think that vote will be fair sanadka hadda horta muddada way yar tahay waa la xadi doonaa qofkan horta haddaan rabin in wax lagaa xadin waa qasab horta inaa ogaatid godadka inaa kala xirxirto meel kasta sax laakiin hadda weli ma la ogaanin sidii u dhici doonto sax iyo shacabkii horta in wixii sameynaya allahu yaclam horta Soomaali bentis ma xadow ma ka dhamaanayo dagtax la soo sheegayaa lacaga afka la isku gelinayo waxa leeyahay baaladkaas wixii ku jiro dhinacay u soo sub macnaha ninka lacag badan qaadanaya waa fahmaysaa Soomaa macnaha waa arinta ka dhacday Florida oo kale George Bush markay wada cararayaan iyo Kerry yaa loogu shubay Florida yaa loogu shubay Bush loogu shubay ninka lacag badan qaadanaya meesha macnaha dagtax la soo sheegayo waxa leeyahay lacag martaa 100,000 af ku gelinaya gobolkaas dhan votekiisa ana igu soo shubaysaa 100,000 waliga ama ku soo maray qof Soomaali $100,000 ku siinaa la dhaay wuxuu leeyahay meesha ka taajir lahaa dowlad kasta ay xitaa oo tusbax wata mataqaana oo Ilaahay ka cabsanayo markii $100,000 afka laga geliyo wuxuu leeyahay box soo wado wuxuu leeyahay ninkaas aa wingareeyay nimana ma naga dhamaanayso ilaa la helo dad muwaadiniin ah oo dalkooda jecel oo Ilaahay iyo mataqaana rasuulkiisa ka baqaayo oo daacad u ah wadankooda ilaa la helo ma ahane muu malaynaya in xadow la joojinayo aad baad ugu mahadsantihiin daawadayaal that concludes our show for the night hopefully inshallah waxaan is arki doonaa episodada soo socda ee Faafiya Show waxaan rajaynaynaa inuu noqdo program kusoo kordhiya waxyaabo faa'iido badan dhammaan ummadda Soomaaliyeed our main objective is to enlighten and educate the Somali people and our first enemy will be the thing called tribalism. We're here to fight tribalism. We are against tribalism. Somalia is one and Somalia needs to unite. True. So inshallah stay tuned to Faafiya Show and see that see you dambe. Inshallah.